السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود إلى مال أدجوكتا بكون سود وهذا كالسن تي في استوديو مقالة لندن إن شاء الله وحن كسو قادم دونا برنامج كان وحيابي ير أو أن إسلام هاي طبعا والله حسوسا كرا قيب كم إذا وحيابيه سنة كيد تجي دعي إن كم إذا برنامج كان عاوة إن هلكو هاي نوحة كم إذا سيد الأوجي هاي وضن كان إنجليز ayaa waxyaabaha sanadkii dhaway ka dhacay waxyaabo ugu weyn la xasuusto waxa kamid ah in la joojiyay cunitaanka jaadka iyo sidoo kale ka ganacsigiisa jaadku waxa uu kamid ah waxyaabaha aafay qoysaska Soomaaliyeed qaar badan kala geeyay qaar badan dhibaato u geystay hay'ashee jaadka markii la joojiyay ayaa waxa la arkayay dad in muddo ah aan lagu arkin wadooyinka iyo suuqyada magaalada iyadoo siyaabo kala duwan ay Soomaalidu uga jawaabeen arrimahaas qaar ku sheegay in wax laga faa'iido iyo sidoo kale qaar ku sheegay in loo darsaday caawasa waxaan idin haynaa abwaan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Faarax Murtiile iyo dabcan koox kale oo fanaaniin ay kamid yihiin Kaltuun Bacado iyo sidoo kale Farxaan Xidig iyo qaar kale waxaan marka hore idin tusinayaa clip yar ee aanu ka soo qaadanay sheekadii Faarax Murtiile kooxdiisu ay ka diyaariyeen waa kan Faarax oo isagu qaadkii markii laga gooyay reerkiisii iyo maxaan ku yiraahdaa gurigii qas ku haya isla markaana cunadii laga kari laayay nala daawada imika nabal bariiskan wuxuu hore basbaas baad ku badisay bismillaahir rahmaan odayga hadal baa laga soo daayay hadal ilaa jaadkani hawlo badan buu naga hayay bismillaahir rahmaan rahiim maxaad karanaysaa maxaan karanayaa bariis baan karanayaa maanta hurdo صوت maxaad karanaysaa bariis baan kariyay bariiskan bariis bal waa kaas bal wax karisay basbaas oo sawdiga basbaaska ka yareeyay imika kada waxaan ku dar ka baan iska aad iska tana karanayna dabal hay tuuris ana ka qaado iska daa oo basbaas ku dar sawdi shalala basbaas kada ku dar basbaas kana ku dar samada la baxo dharka halkan yaala bal iga tago la iga hada ku dar هذا الباقي ولا هذا كان هذا كتر كاس كوفي انا كاري كوفي يا كوفي مين اول بعدين وكاس محل وقت عقيدي ذاك خبيات ما كديس خبيات محايا بعوين ما كنت زي توفر اول شهر هيك قري كوي وحاله كوي سات محاها وحاول ما سريع هرت قلت والله هذا مكاي يا ما يوان وين يا سوالي كان وين يا ما كوي والله توشي هذا قدر بماذا لها درب ماذا هسه نايم كنت تقول توشي بس شاكينا يا شاف جامع توشي هذا بدي يبصر ده مركز هذا هذا شيء ولا هذا الشيء وان ايام سوال مرة كمرة واي واحد عندك كلمة ما له بأسات هالكي تذكر كيس اللي بيستاهل يو ده هالكي ماشي جوكتا كنت هذا أنا ما تقول هذا كوكب حي أكره قلنا لو كتشوش كوكب ما أنتوا جناحين هتمين ما أنت أنا كم بدو في منيس بس شيء كذا لا واحد كوي جميل شوش خبيرات درك أبوك واحد ليه dabcan sida aad maqlaysaan gabadhu waxay leedahay Kaltuun Bacado oo ku metelaysa sheekadan inay tahay xaaskiisa waxba la qaatay xilliga wajaadka cunadii baa laga kari laayahay gurigii buu soo galay wuxuu qasayaa jikadii waxa iga sii daran wuxuu leeyahay dharka qabyaalada ka daawad arkaysaan dharkii la dhaqayay ee qasaalada ama wash machine-ka lagu shubay ayuu leeyahay keyga una la dhawo maxaad dharka u qabyaalaysaa kaada uu u dhaqdaa mar kale aan idin kugu celiyo لو كتشوش كوكب ما أنتوا جناحين هتمين ما أنت أنا كم بدو في منيس بس شيء كذا لا واحد كوي جميل شوش خبيرات درك ده محاسن يا واكن هي ولا شقية هذا هوش ما هذا شقية Murtiile khaadka markii la joojiyo dabcan geeda cuna wax kasta isku day noloshii xogaa u arkay in asaga cariiri ku tahay ayaa wuxuu go'aansaday qorshe ah inuu Nairobi ama Kenya aado isla markaana islaanta ka dhaadhiciyo ama xaaskiisa inuu caruurta xagga u wada dugsooraan geela laga yaabay inuu sir watay oo islaha xaggaas khaadkii wixii ka dhow yihiin hayeeshee waa markii muddo kadib adigu uu ka dhaadhiciyo u ogolaatay bal waxa qabsaday gabadhii markii saaxiibteedu wacatay waxa kala qabsaday asagii gabadhii dariska ahayd bal aan isla aragno naya waxa la yiri ninkii wad Kenya u diraysaa ya haye
ninkiiba waxa lagu aawid billah meeshii qaadku ka baxayay ee qaadku ka soo baxayay ee Kenya ee dadkii raggi qaadka intii xumayd ay wada yaaceenba qaarna ay naagaysinta ku guursan xitaa ku ilaaween ee bulshada ka wada galeen ayaa ninkaaga u diraysaa bismillaahir rahmaanir rahiim wax laga cabdi bilisna carruurtaas ka miidaameen xaaskaygan hala hadlin faraha ka qaad hala hadlin dis doo madaxlo oo wax wadii kula soo hadasho ka qabanin telefoonka ha ka qaban war way ugu nafistaayeen carruur yar bay dhex joogtaa ay weerka xalxalayso iyo ay dadka dumarku isku nafisaayeen ka qaban adigu ka qaban allaha ma ma lagu soo ay xaman ashhadu la ilaha illa hadaba ilaahay ku reebino allaha hadu allahi oo madal wuxuu qalka qurayo qabriga xalaal yahay Allah hadlin xajiidii faraha ka waxyaaba adiga waxa ka mid ah leeyahay Allah hadu ya xaaskayga haween haday ku soo wacdan hal hadlin waxaa laga yaabaa arrin kale rag badan oo inay jaa u furto laga yaabo inay maxaafado ama meel ay tuhmayeen oo jiro isla yihiin wala gurigiina halka laga dumiyaa waxaan ku weydiiyay koona guuraysa agaan guuriya meel magaalo waddanka kale warada Kenya ana ku haya Kenya iska daa Chinese ka bilaabata Chinese ka tag China ka bilaabata waxaan doonaysaa China ka bilaabay waxaan doonayaa de qudhigeeda wadaad lagu sheegay carruurta quraan ka soo baxay waxa iyagu qosol badnaa goormeed guuraysa waddanka ka guuraysa wari waan ka dhoofi weyne almiina ma dhoofaysa wari adigu maad dhooftis aniga dhoofka inaan dhoofo islaantayda adaa soo waco igu diree waddanka maad ka guuraysaa buu leeyahay burtiile halaha buu su-aasha u qaban runtii waa sheeko aada u qosol badan inagoo soo koobayn dabcan waqtiga awgiis ayaa waxaan markana idiin gudbinayaa kiliib kale murtiilo oo ku dhibtooday in jaadkii oo macnihii la gooyey waddankan mamnuuc laga dhigay oo la qabsado xataa waxaa jirtay qayb uu geedaha tegay oo wax ka soo goyn wile balaan caleentan tijaabiya in aan jaad ka dhigi karayo in kale hadda wuxuu go-aansaday inuu dhakhtarka u tago GB-ga amase dhakhtarka xaafadda si loogu qoro ruqsad dhowr majood oo jaad ah dowladda ingiriisku u ogolaato in looga keeno meelaha sida Kenya kale qaadku ka baxo balaan isla aragno murtiile iyo GB-ga waxa kala qabsaday marka waxaan u baahanahay in saddex majood jaada laga qoro oo Kenya laga diro marka waxaan doonayaa qaad koolig baan noqday soo qabri koolig iyo alkool iyo xoolo marka adaa Soomaaliya caawi ingiriis oo qoriya adu ma barnadii walba yani wiil koodhan ma doonayaan ma la socotaa inaan shidoo dhan laga soo daayo oo jaadka la joojiyo ha waa socda de marka ma sharcigan jibin ma qaluucina murtiile wuxuu leeyahay markii farxaan xidig oo dabcan matalayay GB-ga amba dhakhtarkiisa khaaska ah markii uu ka codsaday inuu u qoro dhowr majood oo jaada in macnaha waraq ka socota dowladda ingiriiska oo la leeyahay ninkani qaad la-aan ma noolaa karo ee ha loo qoro in doora ayaa murtiile sida arkiisa wuxuu ku jooga wuxuu leeyahay niyow sharciga miyaan jibinaa faarax wuxuu leeyahay maya waan qalloocinaynaa runtii anigu aad baan ugu qoslay waxayna ka mid aheeday waxyaabaha dhacay sanadkii ina dhaafay oo dee ka dhashay joojinta jaadka faarax waxaa loo qoray oo si darqiya loogu diray dabaal iyo jiim iyo waxyaabo bal oo naftiisa kusoo dhisayo si xoogaay bal uu ula qabsado nolosha caadiga maadaama qof in muddo ah banaanka ah si caadiya ugu socon ummadda u dhexgelin oo matalaya nala daawada You oh yeah yes tomorrow God where you no tomorrow today you I can come today No, we're meeting tomorrow at 10 o'clock. I'll send you the address. It's in Hayes Rehabilitation Center. and appointment with the God tomorrow 10 o'clock with the God you know cham God waxa u soo dhacay telefoon kaga soo dhacay qaybtii loo gudbiyey ee la rabay inuu markaasi entertainment ama waxyaabahan trainingka iyo dabaashisan uu soo sheegay ku sameeyo laakiin gabadhii soo wacday isaga waxa kala qabsaday isagu wuxuu leeyahay khaadkii baa la ii keenay hadda wuxuu haystaa wuu faraxsan yahay
waxa iyaga sii daran saaxiibkiiba wacay wuxuu leeyahay dowladda ingiriiska la hadlo sida arkayseen David Cameron inuu bal mar kale aan idinku celiyo bal waxa uu ninka saaxiibkiisa ugu bootaynayo qaad anigu aan liisankii qaadka leysiyey dee jibigaan u tagay ninkayga nin mutacallinaan nin aqoon-yahanaan anigu cid kasta waan la hadlay Tony Blair baan la hadlay muxuu ahaa waxaan la hadlay mid inaan Shakespeare awow u yahay Master Bean baan ayaan u diray fagas waxaan ku yidhi anigu ninkaygan jaad kama maarmi karo waxa weeyaan waa koofiga iyaga weeyaan marka waxay ugu yidhahdeen bal dad kale ha u sheegin laakiin adigu maan ku ogolaanayna laakiin cid kale ha u sheegin bay ugu yidhahdeen ingiriisku ladee sida gaariga marka liisanka lagu qoro maartay qofka in shoonka laba qof lagu qoro aniga liisankayga wax loo qof qora inuu soo raaci karo oo ila cuni karo marka adaa kaa dhigay waa sheeko aad u waalan markana faarax murtiile oo dabcan isagu matelaya qofka qaad kooliga isku magacaabay ee qaad la-aantiis aan noolaa karin iyo xaruntii ballanta biri looga sameeyey aan aragna waxa kala qabsada isagu wuxuu u haystaa sidaan dareemayo ambaad wada arkaysaanba in khaad loo helay oo dowladda u ogolaatay bal haye inala daawada walaalo fiicanta iyo walaal fiicanta walaal aad iyo aad baan kugu mahadnaqay sida aad yani ila shaqaysay aad nolol shaqaysay waayo mataqaana intaas soo bilood ayaan dadku hawleenka socon waayeenba haddayna saa yeelin ugu gumaamayaa meesha ugu gumaamayaa inagu haddayna saa inagu aynan xaqoon u dhaxsan yaa ingiriisku isku iska daayo qabriga ingiriisku ogoleysaad kala joojin marka inagu cid kasta way dhaxstaa cidkooda ولا باوكا فرن مركز فرن أنا أقول له ماشي أنا سوق بين مركز أنا ما كسر على أقول ولا الموح وين ما قسم سوى ميلو ما ميلو مسكسي ما يورا كل وانس ودي يعني راسك ما يوصل هذا يعني وما تدق يوتي ومسكتي هذا waxaba laga dhigi layahay intii sheekada marka arkay aad baan u qosli ma u malaynayn anigu heerkaas inuu khaadku dadka gaarsiiyo laakiin bal mar kale yaa kartoonka ka qaadan ninkan xafiiska yaalay bal dhibta uu dadka ku hayo aan isla aragno mar kale يعني ولا قال بح مستمد يعني بح بدون كوريستا ما يوالد تبغى كان أديك ما اللي هي تحفيز كاس كلا ترى ما خاذني ها خاذني ما يقول سكوت كتير حد ويا دانك واحد مو يا ولا وين اللي بداويه وقاد كلا قاعد داويه يا هو تبغى كان على تحفيز كله هي ما كنت شيء هالكادك وانا أنا فهميني قف كتشين كلا جينية هذا بارنا يا وباحن إكسسايز وأديك أنا كل شيء أديك ويجي أنا أقول ما أنا أكيد ما أركز إذا أنا أيوة شيء قلت ما أركز أنا أيوة فعلا حاجة تري ما تبر تري بعد مثلا كو لا حاجة سو على هذا شيء ملقي والله وحبا كبع وابتاي intaasina waxaan ugu gudbaynaa faarax murtiile iyo kooxdiisa iyo waxyaabihii ay ka diyaariyeen joojinta iyo la dagaalanka qaadka iyo dabcan reactionadii amba qaababkii ay Soomaalida ay ka soo saareen iyo waxyaabihii ay kala kulmeen markii qaadka la joojiyay haddana waxaan rabaa inaan idii gudbiyo Cabdi Good Abays waxa uu ka mid yahay dadkan waayahan Soomaalida sida weyn u baratay una hadal hayso sida ogtiin waxa uu sameeyaa barnaamij loogu magac daray amba ugu magac daray israaca af Soomaaliga haya Cabdi maalintii uu bilaabay ilaa hadda waxa uu wada xarbi ama dagaal ku saabsan sidii oo dabcan waxyaabahan la qaldan ama xag suugaaneed amba xag anshaxeed ah Soomaalidu ay fanka iyo ku wadaan marka bal aan dhowr clip ida tusiyo Cabdi markii uu bilaabay marxaladii kala gedisnaa oo soo bilaabay iyo hadda meesha uu maray anigu kulli waxaan ugu magac daray Cabdi sabarkii ama dulqaadkii ka soo dhamaan rabo sababtoo ah
markii dhibta kugu badato maalinba aad wax sheegto marka ugu daba haddii warka lagaa qaadan waayo waxaa laga yaabaa in macnihii stage kasta aad soo marto marka ugu dambeysa aad derbiga soo taabato bal yaanan idinku badina aan cabdigood idsiyo iyo kilibyo dhowran aan isu keenay marxaladii hadba uu ka soo maray wacyigelinta iyo barnaamijkiisa israaca halka uu la maray hodhado laabta igu qabay nam tam hoo baarud kala labta igu qabo baarud waxaa jira markaa waxyaabo aad indhaha aan u wanaagsanayn qofnaba yar iyo weyn rag iyo dumar uurkaada iga taal hayga aamin maaf Soomaali caadiya ma heesba subxaanaka ya cadiim saaxiib uurkaada iga taal hayga aamin bixin haddii eebba yeelana waa nimanaya war miyaan hadlaya war miyaan heesaya hoo baarud caqliyadayda yeeri way wareertay oo garan maayo waxaan meeshan dee ka socda dhimirkiisa waa ka dhiiban karaa laakiin annagu dhimirkayaga sidaan u soo dhiibnay dee weydii nala eegi doontaan akhlaaqdii baynu ku noqonaynaa iyo anshaxi oo khariban heesta dhunkashaa la yidhaahdaa hablaha dhammaantood ti aanu dhaafee indhihii ku dheehdaa qalbiga uga dhigantay sharaxaad badan oo kale usii geli mayno tan laakiin waayo labada qalcadood ee horeba way afarta qalcadood labada qorbe ugu horeeyaaba way qurux badan yihiin laakiin hooriskii heesta ayaa wuxuu noqday midaan belo de mid daahir ya shamisa marka miyaynu ka dhacday oo imika la qaado ayaa wuxuu yidhi dihashada cadceediyo beydka ugu horeeya markaad istaagto dihashu iyo cadceed isma qabato fatabaaraka allahu khalaqa ahsan alaalamiin subxaanaka ya cadiim isma qabato dihashu waa marka yani labood uu dhalayo ee dhadigood uu dhalayo ayaa la yidhahdaa wuu diiday hooyadu ilmahay dahatay cadceedu ma dhasho nuur bay gantaa mooyaane ma dhasho cadceedu subxaanaka ya cadiim jeegaan istadabtaay gurigeen iyo allaheen intaynu nolosha noolayn miya aragteen jeegaan istadabtay waaba qaansa waaba qaansa 180 degree ayda ku gama oo sidaa doonto ugu galgalo goormaa timi waan ku tabiye jirkiiyo naftayda ku gama oo sidaa doonto ugu galgalo war miyaynaan ilaahay ka xishoonaynin waa maxay muddo badan isdhowrnay dee waynu isdhowrnay muddo badan ma isku soo dhawaanaa dee kadaha ku dhawaane balaaya ku dhawaatee kadaa ma isku soo dhawaanaa jacaylka dhanceeni kaa hayey ee dhaawacay ee inantana ay og tahay ma isku soo dhawaad iyo dibna laysa saaraabaa subxaanaka ya cadiim dee balu fiirso ma isku soo dhawaanaa dhunkasho dibnaha faruuryaha bal intuu israaciyeeg dhunkasho dibnaha faruuryaha lagaago waar wuxuu siduu yahay wuxuu yidhi alla ilahi dheg weeyaan bal hadda ila dhegeysta waxyaabahan ay samaynayaan dhalinyarada dhan bal heestan eeg alla ilahi dheg weeyaan xaalku dheg weeyaan anuguna dheg baahay alla ilahi dheg weeyaan xaalku dheg weeyaan aniguna dheg baanahay waa hees bay ku jirtaa ku bilaabanta bal ka warramaydo waa runtii aniga qodaydu waa ku qoslay waxaas dhag weey taas dhag waa runtii wax ku qoslo ase yeeshee hadda cabdiyo qoslay oo heesihii erey u soo qaadayo sax ayaan arkaynaa laakiin goordhow waxaan idiin soo wadaa cabdiyo hadalkii ku dhigay oo marka dhabanahaas ku soo aruuray yiri war xaggee loo socdaa anshaxii waa laga tegey nidaamkii waa laga tegey ewel waxaan isla ogeynaa in ereya la saxo hadda waxaan goordhow rabaa inaan idin horkeeno cabdiyo marka hadalkii ku soo aruuray dhabanahaas iyo ka badila bal Soomaaliya idin kurweeda kaasa wax ka dhah demoyi
bal idinku dee si dhaha wallaahi cabdigood howlaa u taal howl badan uu soo qabtay aadna waa ugu mahad celinaynaa dabcan shaqada culus hase yeeshee waxaa la ogsoon yahay qofka faarax murtiiloon wax yar ka hor ka hadlayna ayaa mar sii horeysa sheeko aan ka dhageystay waxaa kamid ahayd xanaaqa hayga dhameen ama carada hayga dhameen marka cabdi waxaan ku leenahay carada iyay kaa dhammaan qofkii soomaali waa wacyigelin la yihahdaa dhib wuu qabaaye halkaa ka sii wad aan mar kale idinku celiyay kilibkii ugu dambeeyey ee ka baxay stuudiyahan Calson TV magaalada London ee cabdi uu ku wacyigelinayay ninkii dhalinyaraha ee Soomaaliga ahaa ee heesta soo saaray isagoo inta sare ka qaawan iyo qaabka cabdi dhabanahaysku ugu soo ururay bal inihii hore soo koobnay oo dhan qaarna heesaha la qaldanaa qaar anshaxa la qaldanaa hadda hadal afkii baa juuqdi gabay markii cabdi uu soo saaray miiska nin rag ah oo inta sare ka qaawan oo heesiga reaction-ka cabdi mar kale nin xishoodaa la arki jiray inan xishootaa la arki jiray nin habradaa la arki jiray inan khajishaa la arki jiray waxaynu halkan ugu nimi meel wax jiim la yidhaahdo inta nigii seer la xidho murqaha iyo wax la dhiso oo dee ninku isagoo rag dhex joogo hadduu muraayada isku daawanayo oo jiimkiisa iyo birihiisa qaadqaadayo war waxbaba may ahaateene bal ninkan isna intuu kamarada qaaday ninka yidhi waan heesayaa ee kolba jirkiisii meel dhaqaajinaya sidii haweenka isagoo qaawan muraayad isku daawanaya subxaanaka ya cadiim halka aynu marayna baleega hablaynu la yaabanaynay imisaynu ka dignay imisay Soomaali ka digtay imisay ka digtay rag mariyihii dhigtay baynu maanta haynaa subxaanaka ya cadiim waad aragtaan u malaynayaa cabdi iyo waxa kala qabsaday Soomaalidii dee ama fanka ama nidaamka libiska rag iyo dumar ku dheelay intaasna waxaan rabaa inaan uga baxo hayeeshee markan waxaan rabaa in aan barnaamijkayga ku soo gabagabeeyo sheeko runtii iyana sideeda xiiso u leh qofka bani aadamka sida hadda baan cabdi good ka soo sheekeynay barnaamijkiisa markuu in muddo wacyigelinta wado marka dambe u daalo dabcan dhabanahays ku soo ururaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle sida la ogsoon yahay Soomaalida waqti aad u dheer ayuu dabcan kulamo u qabto shirar wacyigelin intii tabartiisa waa garab istaag hayeeshee kilibkan hadda idii soo wada waxaan arkaynaa sida cabdiba dhamanada u qabsaday si u dhow madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo dhabana qabsi ku soo ururay isla markaana Soomaalidii ku dhahaya hadal macnihiisa markaad fiiriso war Soomaaliya almiino bal wadaadadiina culimada dadka culimada ee hadlaya bal wax ka dhageysta taa waxaan uga jeedaa madaxweyne Geelle waxa uu soo qaatay khudbad Sheekh Maxamed Idriis oo ka jeediyay wadanka Mareykanka sheekh baan ka maqlay habeen telefisyoonka ahaa shay muuliyo Soomaaliya shay muuliyo Soomaaliya shay muuliyo mar kale aan idinku celiyo haddana labada shay muuliyo tan Sheekh Maxamed Idriis iyo qaabka u dhahay madaxweyne Geelle bal mar kale dadkiina makhaayadaha fadhiya odayaasha makhaayadaha oo siyaasadda Soomaaliya ka shaqeynaya oo caruurtoodu gangiska noqdeen there shame on you shame on you shame on you shame on you Soomaaliya shame on you runtii waa sax Soomaaliya shame on you waa sax Soomaaliya haddaba shame on you isku xishooda يعني ودنكينا لستا تلك أي نبتي دعاية سياسة بينات كداية تعود يا الانتاس يا سوكو يا برنامج كي كوبنا يا أنا قلت لك قال لي سويت أنت سنة كي لما تكوني أفرت طبعا وحنور رجعنا مركلين Soomaalida dhamaan meel ay joogaan bas sanad cusub oo wanaagsan oo caafimaad leh bash iyo baraaro intaas ayaan ku soo koobayaa waa aniga oo Ciise Maxamed Diiro tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh